السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا برنامج تاريخ ذا قيبتي سا دالجرياشي سومري دالك الصومالية. قيبت دالجرياشة وحن كسر قادرنا على dadkii loo soo xiray darajooyinkii ciidanimo iyo dadkii ka soo shaqeeyay xafiisadii dawladda ee qaab nidaameed wax u qabtay. haddaba ku soo dhawaada barnaamijka taariikhda qaybtiisa daljiriyaasha Soomaalida. maanta barnaamijkii waxaan ku soo qaadan doonaa wixii dhacay 12 Abriil 1954. sidoo kale barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa aqoonsi kooban oo ku saabsan daljire taliye General Daawud Cabdulle Xirsi alle ha u naxariistee. General Daawud Cabdulle Xirsi waxa uu dhashay 1924 waxa uuna ku dhashay deegaanka Mareeg oo ka tirsan gobolka Galgaduud. General Daawud waxa uu 1950 loogu qaaday tababar dalka Talyaaniga. waxa uuna halkaasi ku maqnaa ilaa 1954 dawladii maxkamada ahayd ee uu horkacayay aabihii xurriyadda Cabdilaahi Ciise Maxamuud oo qorsheynaysay inay ciidan qaran u samayso dalka Soomaaliya ayaa 12 Abriil 1954 waxa ay aasaaseen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana lagu aasaasay rag uu ka mid ahaa General Daawud Cabdulle Xirsi Allah ha u naxariistee. waxa uuna xilligaasi noqday taliyihii ugu horeeyay ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. General Daawud waxa lagu xasuustaa dagaalkii Itoobiya lala galay 1964 oo lagu doonayay dhulka ay Itoobiya haysatay iyo kadhidinta dhul balaarsiga. waxa kale oo lagu xasuustaa igleelidii ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya ee dhulka la galay dawladii cimriga dheerayd ee gumaysta kalkaalka ahayd waa dawladii Itoobiya. General Daawud Cabdulle Xirsi waxa uu geeriyooday sida dadka qaar sheegaan 1965 waxa uuna ku geeriyooday dalka Ruushka. taliyaha waxa lagu maamuusay wadada General Daawud, koobka General Daawud iyo waxyaabo kale oo badan. Allah u naxariistee. General Daawud Cabdulle Xirsi waxa uu ahaa taliyihii ugu horeeyay ee ciidanka xoogga. maanta oo kale ayayna ahayd maalintii loo saaray darajadii taliyanimo ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. 12 Abriil 1954 waxa ay ahayd maalin cusub oo Soomaaliya u dhalatay. talaabadii maalinta la qaaday waxa ay dhabaha u xaartay raadinta iyo soo celinta dhulkii Soomaaliya. waxa ayna talaabadani noqotay mid ay Itoobiya jeclaysan sababtoo ah Itoobiya waxa ay qowmiyadda Soomaalida u taqaanay ilaa maanta u taqaanaa qowmiyad ka mid ah qowmiyadaha Itoobiya. waxa ayna Itoobiya markasta u oomanayd dhulka Soomaalida. hase ahaatee damacooda waxa uu qalqal galay oo ay culays dareemeen igleelidii ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed 12 Abriil 1954 balse dadka xilligaasi talinayay ayaa ahaa dadka feejigan Itoobiya oo dareemay cadaawadooda. halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeeni maanta. waad mahadsantihiin daawadayaal. waxa iga xasuusin ah oo iga afeef ah aruurinta iyo kaydka taariikheed ee Soomaaliya oo ah mid danaysi darteed inaan raadinta iyo soo gudbinta taariikhdani aan si dan guud ah ugu dhabegalay si uusan u dhumin aqoonsigeena iyo jiritaankeena. haddaba waxaan ka afeefanayaa wixii khaladaad ah oo aad ku aragtaan guud ahaan barnaamijka taariikhda inaan u samayn si ku talagal ah. waxaadna igu soo gudbisaan khaladaadka qolka fariimaha si aan u hagaajiyo. mahadsanidin. barnaamijkani waxa idin soo diyaariyay idina soo jeedinayay Soomaaligii Afrikaanka ahaa waa anige Liibaan Cabdilaahi Aflaax.